haweenka deegaanka Fadhigaab ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay si degdeg ah uga qayb qaadato nabadaynta labada beelood ee walaalaha ah ee dhawaan ay shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag. Sidoo kalena waxay sheegeen inay yihiin dad barakacayaal ah oo u nugul shaqaaqooyinka iyo colaadaha keeye. Waxaana hadaladoodii kamid ahaa gobol nabadeed oo aanu maxaan ku raahdaayeen labada qolo ee habar lamaan ee isku midka ah habar wadaagta ee habar yarta ah ee ilmaabtiga ah in ilaahay isu soo sakhiro oo la isu keeno oo maxaan ku raahdaa guurtida iyo dawladda iyo dalalka kale ee maxaan ku raahdaa dariska nala ah inay caawiyaan oo nala eegaan labada qolo oo heshiisiyaan ragayaga oo isu keenaan oo nabad noo ilaahay noo aslixiyo oo ilaahay noo sakhiro ragayaga oo ay isu yimaadaan oo iska ilaahay bogoda farcasu mariyo baanu doonaynaa. talabaad waxa weeye magaalada dagaal baa ka dhacay, dagaal sokeeyo ahaa, dadkii maatadii halka lagaga tagay iyo dawladda ragii shaqayn jira magaalada ka shaqayn jira waa ka carareen. hadeerto maatooyinka way liitaan, magaalada way waqti qaxoontiga dul saaraa iyo waxa dul joogay maxaan ku raahdaayeen halka dadkaas waxay doonayaan wax soo caawiya gudoomiyihii magaalada marka labaad waxaanu doonaynaa macallinkii marka saddexaad waxaanu doonaynaa wadaadkii inamada ku hayay xerada xerta ah xeraska ah baanu doonaynaa. inta markaanu helo walba iyaga hagayaal oo magaalada dagaal sokeeya dhacay, dagaalkaas sokeeya ragii uu naga kala fogeeyay labada beelood midna wax kama hayno. maatidii iyo dawladdii baa joogta ilaa noo soo gurmatay, askartii militariga ah noo soo gurmaday iyo dumarkii baan ku joognaa magaalada. marka waxaan u baahanahay ilaa iyo hay'adahii samafalka, ilaa iyo madaxweyne, ilaa iyo qurbo joog. waxaan u baahanahay dadkaas maanta wuxuu u baahan yahay wixii heshiisiin lahaa ee wada fadhiisin lahaa ee isu hagi lahaa isu soo hogaamin lahaa. weli waxna soo dhex yimaada askarta mooye ma hayno. haddaa Ceergaabaan ahayn, haddaa Burcaan ahayn, hataa waxaan ahayn Hargeysa, waxa laale ciidanka ayana nagu dhex jira mooye wax kale aanu haynaa ma jiro. waxaanu ahayn magaalada Fadhigaab anagoo ah waxaanu ahayn magaalada qaxoonti dul yaalay. waxaanu nahay markii hore magaalada qaxoonti dul yaalay, markii qaxoonti dul yaalay maxay ahayd toy dagaal yar oo sokeeya ka dhacay. maxay ahayd toy markii dagaal yar oo sokeeya ka dhacay ragii labada beeloodba uu naga kala yaacay, maatidii soo hadhay, roobuu helay, buulashii ka qooyay, maxay ahayd toy ay qoyeen, maxay ahayd toy ay raashin waayeen oo qadeen oo ay bukaan oo hargab iyo jadeeco iyo maxay ahayd toy tabaala aduun oo dhaniba u haysto. dhinaca kale saraakiisha sare ee ciidanka ku sugan deegaanka Fadhigaab oo wareysi gaar ah siiyay Honkebel TV ayaa waxay sheegeen inay ku kala dhex jiraan sugayaana ammaanka, waxayna ugu baaqeen salaadiinta iyo cuqaasha labada beelood inay ka shaqeeyaan nabadda. dhinaca kale ayaa waxay ka dayriyeen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaankaasi Fadhigaab. ilaalinta nabadgelyada dadka beelaha ee walaalaha ah isku midkay halkan isku laayay wixii dhintay mooyaan wixii kale waanu ka saarnay magaalada. qayb waxaanu geynay bohol, qaybna waxaanu geynay huluul iyo laasoomaare iyo buuraleyda. xaasaskii iyo carruurtii baa halkan joogay iyo maatadii aad iyo aad bay u tabaalaysan yihiin. wax ka dhammaatay dunyadii, roobabkii baa ku helay, gogol ma haystaan, hum ma haystaan, biyo ma haystaan. labada dhinacba ee aanu ka saarnay raggii ee isku laayay halkan ee walaalaha ee laga gaabiyey salaadiinta iyo cuqaasha ka soo jeeda labada beelood ku talin lahaa ciidanka qaranka qaybta saddexaad. in badan 2 sanaanu iminka nabadgelyo ku jirnay, waanu dadka walaalaha isku midka ee isku xerada aanu ka shaqaynaynay. rag baa nagaga dhaawacmay, ragna wuu nagaga dhintay. qaybtii kale iminka buuraleyda ay galeen. weli halkaasaanu ku hor joognaa kumayaal career ah oo aan midh haysan, wax adduunyaha haystaan ma jiro. gogashii iyo biciina wax kala tegay, daad baa kala tegay, roobabka nimcada ilaahay, baahida ilaahay baa saara. dawladda waxaanu leenahay isimada iyo cuqaasha waxa laga qabto. ciidanka qaranku hawsh badan baa u taala amayaa inkastoo waajibka ay shaqadeedii tahay hadda hawl dheeraad ay imanayso dayaca. anaga baa 2 sano wargaalsayna Ceelaf Weyn Fadhigaab meesha la yiraahdo Darweyne
biyo guduud intaas baanu 2 sano wariyaalsanay labada sano waxa laga yaabaa askarigu inuu heerkiisa baanu arag ama ay kala yaaceen arrimaha awgeedna waxa keenay nabadda uu dadkiisa xal u qaaday inuu sugo waajib ay ku noqotay waxaan codsanaynaa bal loo soo degdego arrimaha waxa jira oo kale arrimo dad ayra oo deegaanka ku hareeraysan oo degan oo aad u tabaalaysan ama biyo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama dawo ha noqoto si walba u tabaalaysan taana bal waxaan codsanaynaa wixii ilaahay wax fiiye inaga loo soo degdego waa mahadsantahay فرح عبد النور تلفزيون كعالمي هون كيبل تي في ديك ماذا قرأ